asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo qisooyinkeenii xiisaha badnaa asxaabta ku xiran aayaha nolosha t v qisadan waa dhab waana mid dhex martay lamaano soomaaliyeed oo ku xiran bejkeena ama boggeena youtube-ka iyo facebook ee aayaha nolosha t v waxayna qisadan ku bilaabanaysaa sida tan. jacaylku waa cajiib. aniga waxaa igu dhacday oo isoo maray qiso jacayl oo igu reebtay raad aad iyo aad u xasuusa oo aan marnaba ilaabi karin. waxay ku bilaabatay buu yidhi wiil inala wadaagay qisadan ku dhacday anigii gabar aan isku xaafad ama aan isku iskuul ahayn. waxaa ina dhex maray kalsooni badan oo aan ku qabnay aqoonta dheeraadka ah ee inaga dhexaysa. wuxuu yidhi waxaana dhex maray xiriir walaaltinimo balse muddo kadib waxaan noqonnay dad isdhexgalay inantii ilaa in aan isfahanno aakhirkii anigoo u soo bandhigay buu yidhi jacayl xadaafa oo markaas iwaalayay balse waxay ii sheegtay inaysan diyaar u ahayn waqtigaa in ay jacayl ila sameyso oo xiriir ah ila wadaagto. waxbarashadeeda aniga iyo ixtiraam ayay inoo haysay waxayna inta badan gabadhu ahayd mid iga warqabta balse waa gabar oo kagama harine waxaa muddo badan aan daba socday oo u jilciyey hadaladii gabadhii waxa ay noqotay mid jilcda oo dhankayga ayay soo eegtay iyadoo aakhirkii iga ogolaatay in jacaylkeena uu noqdo muddo 2 sano ah ayaan gabadhaas xiriir la lahaa buu yidhi wiilkan. markii aan ka baxay dugsiga sare ayaan ka codsaday inaan guri xalaalah galno oo aan is aroosno labadeenna misna aan is guursanno sida dhaqanka diinta iyo dadkeena Soomaaliyeed ba ay qabaan balse way iga diiday oo go'aankaygii waxayna igu tiri buu yiri waxaan doonayaa inaan kaamilo yeesho waxbarashadayda ma doonayo inaan dayaco oo aan halkaas kusoo gabagabeeyo. inantuna waxay ahayd buu yiri gabar inta badan jecel waxbarashada. muran badan oo na dhex maray waxaan markii dambe u sheegay inaan caawo kulanno oo waxyaabo badan aan ka wada hadalno. waan xasuustaa buu yidhi waxaa beri oo kala bilaabanaya bisha Ramadaan jawigu aad buu u macaanaa neecaw badanna waa ay dhacaysay cirku waxa uu ka hilaacaya roobab markaan soo socda. wuxuu ahaa buu yidhi habeen xasuus gaar ah ii leh aniga. waxaan ku iri buu yidhi maxaa u diidaysaa inaan isguursanno balse waxay igu tiri erayo aan ilaawin weligay. waxay igu tiri anigu waxaan doonayaa inaan jaamacad ka baxo dalka dibaddiisana aan aado waddanka Malaysia ugu yaraan aan tago waayo waxaan ahay bay tiri qofka kaliya ee hooyaday adduunka ay ka fiirsanayso gabadha cidna lama dhalan aabaheedna waa uu dhintay allaha u naxariistee. adna hadda ayaa dambaysay iskuul haddana aan isguursanno waalidkeeda ayaan culays saaraynaa taasi waa dhibaato oo waxba ma aanan faa'iidin bay tiri. waxaan u qaatay inaysan i doonayn aniga markaas gabadhu waxaan ku iri waa yahay sideed jeceshahay samee iyadoo ila hadlaysa baan ka soo tegay. haddana waqti badan oo aan kala aamusnayn waxaan maalinkii dambe aan goostay inaan waddanka ka tahriibo oo aan isaga tago. waqtigaas waxay ahayd waqtigii ay bilaabmatay dabeeshii tahriibka waxaana u sheegay inaan u socdo oo aan dalka ka tagay. waxay iga codsatay inaan tahriibin oo aan musiibo dhexgelin balse waxaan ku gacan seeray hadaladii iyo weliba waan intii ay waaninaysay. waxaana ku iri buu yidhi haddaad adba tegaysay anna waan tegayaa maxaa ii diidayo. waxaan ka baxay waddankii anigoo boqolaal tahriib iyo maalmo adag waxaan tegay waddanka Liibiya iyadoo markaas ay lacagta aad u jabneed lagu tegi jiray. waxaa lagu xujeeyay inaan keeno $800 oo si degdeg ah inaan ku bixiyo haddii aan doonayo in Yurub iyo Talyaaniga aan tago. waxaan la soo hadlay waalidkayga una sheegay inay si degdeg ah la iiga rabo lacagta. waxaan garan kartaa waalidka hooyo iyadoo weliba suuqa fariisan jirta oo nolol maalmeedkeedii nooga soo dhicin jirtay maadaama uu aabaheen nooleen oo uu geeriyooday. waqtigaas buu yidhi wiilku daruufo jira awgeed lacagtii baa iga soo dahday
waxaana la hadlay gabadhii una sheegay in arrintaydu ay adag tahay. Waxaan u sheegay in lacagtii la ii haysto sidii dhaqsiyo badanna la iiga rabo, haddii la iga waayana la ii dilayo. Waxaana ii sheegtay inaysan lacag hayn balse ay hayso balse ay u qorayso nambar lacagta la igu soo diro, iyadoo sheegtay in waqtigaas in lacagta ay sugayso 2 maalmood kadib. Waxa uu ii soo dhacay lacagtii, waxaa la ii sheegay in qof dumar ah ii soo dirtay. Waxaan u maleynayay hooyaday, buu yiri. Cidnaba wax kale ma sii weydiin, balse markii aan la hadlay oo ay noqotay gabadhii, waan yaabay marna waan farxay. Adigoo mahadcelin badan kadib waan ismacsalaameynay. Wax yar kadib waxaan ka baxay wadankii anigoo galay wadanka Denmark. Haddan xoogaa ayaan joogaa dalka Denmark oo aan ku noolahay, buu yiri inankaasi. Waxaan arkay gabadhii oo aan weli aadin jaamacad. Waan la hadlay anigoo sababteeda weydiinaya, balse waxay ii sheegtay in markii dambe in lacagtii ay ii soo dirtay ay ahayd lacagtii jaamacadda ay ku aadi lahayd. Waan ka naxay, waana ka murugooday, balse waxaan u sheegay inaan qaadi doono muddo. Haddaan joogo waan u dacwooday gabadhii. Caaqirkii waan qaaday, waxayna ila joogtaa wadanka Denmark oo aan ku wada noolnahay. Waxayna ii haysaa, buu yiri, 2 caruur ah, wiil iyo gabar. Waa marwo aan jeclahay, buu yiri, waana guulaystay jacaylkeennii anigii iyo Asma Cabdirashiid. Wiilka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in noloshiisa inta badan uu doonayo inuu ku dhammaysto gabadhii dhibka, dheefta iyo weliba jacaylkii wanaagsanaa la soo martay. Saaxiibada, haddii qisadan aad ka hesheen, waad nala wadaagi kartaan qisooyin jacayl ah oo ku aadan Aayaha Nolosha TV.